aynu fiirino waxyaabaha dhalinyaradeena ay ku mashquulsan yihiin oo ay daawadaan, run ahaantii waxaad dareemaysaa inay yihiin waxyaabo aanan anfacayn noloshooda maanta iyo midda berri. Ayadoo maanta ay fududahay in la helo xogta, haddana waxaa adag inaad kala shaandhayso ama aad kala saarto xogtii aad daawan lahayd inay tahay xog muhiim ah oo wax ku taraysa, waqtigana aanan kaa dhuminaynin. Haddaba waa maxay waxyaabaha lagaaga baahan yahay inaad iska ilaaliso marka aad baraha bulshada daawanaysid? Waa maxay waxyaabaha muhiimka ah ee aad daawan lahayd? Mase jiraan habab ku caawin kara oo aad adeegsanaysid si ay u noqdaan waxyaabaha aad daawanaysid wax nuxur leh? Soo dhawaada, magacaygu waa Yacquub Xasan. Maalinteena inta ugu badan waxaynu ku qaadanaa daawashada baraha bulshada. Haba kala duwanaato waxyaabaha aan xiiseyno daawashadooda. Baraha bulshada waxaa ku jiro muuqaalo badan oo aanan ku siinaynin xog muhiim ah, madadaalana u badan. Malihi madadaalada wax jiro ma ahan, ma rabo inaan munaafiqnimo sameeyo oo anigaan idinla hadlaayo ayaaba daawado mararka qaar muuqaalada madadaalada ah, balse waxaa muhiim ah inaanan iska badin oo ha ka dhigin wixii kaa mashquulin lahaa waxyaabaha muhiimka ku ahaa noloshaada, oo muuqaalada inaad daawato hawl asaasi ah oo aad qabato ha ka dhigin. Wax walba oo nolosheena ka mid ah waxaa jiro waxyaabo dhalinyarada mashquuliyo. Hadda xilligan la joogo waxaa dhalinteena mashquuliyo daawashada baraha bulshada, oo waxaad arkaysaa qof dhalinyaro ah oo maanta waqtigii uu hurdada ka soo kacay ilaa laga gaaro habeenkii saqda dhexe keliya daawanayo baraha bulshada. Oo maxay ka dhibi lahayd haddii uu daawan lahaa wax anfacayo? Waxa uu daawanayaa wax qosol u badan iyo shactiro oo hal dhibic oo faa'iidaha uusan ka helaynin, oo cumrigiisa iyo waqtigiisa si fudud u qaadanayo. Haddaba si aad uga fogaato waxyaabahaas aan waxba kuu taraynin, waxaan kuu soo jeedin lahaa talooyinkan soo socda. Number 1, ha daawan muuqaalada anshaxa xun. Haddii aad ka mid tahay dadka ku imtixaanan daawashada muuqaalada xunxun ama pornography, noloshaada waxay ku jirtaa halis aad u weyn. Haddaba saaxiib ka waantow oo hawshaas ka tala bax oo u bedel waxa ku anfacayo daawashadooda. Number 2, ha daawan waxa loo yaqaano soft porn. Tan waxay soo hoosgelaysaa qodobka koowaad oo asiga wuxuu noqonayaa inaad daawato gabar social media ka nikiso, oo waxay kugu hogaaminaysaa wadadii weyneyd oo ah inay kula fududaato daawashada aflaamta xunxun iyo inay kula fududaato inaad dembi gasho. Waqtigaaga xakamee. Baraha bulshada marka aad isticmaalayso jirkaaga wuxuu soo deynayaa dhacaanka farxadda, sidaas daraadeed waxaad usii bogaysaa inaad sii isticmaasho oo aad kusii jirto baraha bulshada. Sidaas daraadeed haddaadan iska xakamayn waqtigaaga waxaad kusii dambeynaysaa inuu waqti badan kaaga lumo isticmaalka baraha bulshada. Xirfad ku baro baraha bulshada. Sideedaba waxaa la yiraahdaa baraha bulshada waa seef laba af leh, oo waxay natiijo ku siinaysaa qaabka aad u isticmaasho. Oo haddaad u isticmaasho oo aad adiga xakamaysid oo wax badan oo xirfad ah ayaad ka baran kartaa. Isticmaal xeelada yaayada ama Pomodoro technique oo sheegaysa hawl walba oo aad qabanaysid inaad u kala qaybisid 25 daqiiqo oo shaqo qabasho ah iyo 5 daqiiqo oo nasiino ah. Marka waxaad samaynaysaa 25 daqiiqo ku qabso hawlahaaga. Haddii aad ka shaqaynaysid xafiis, haddii aad rutiilo tahay oo aad foorno ka shaqaysid, haddii aad dukaan la tahay, 5 daqiiqo iska naso oo waqtigaaga nasashada isticmaal baraha bulshada. Haddii aad wax daawanayso, haddii aad wax dhegaysid ama wixii la mid ah, ujeedo u daabo waxa aad daawanayso oo iska xakamay waxyaabaha aadan u baahnayn inaad daawato. Wax walba oo kaa soo horbaxo ha iska daawan. Marka hore iska fiiri shayga aad daawanaysid waxa uu yahay, isna weydii muxuu igu soo kordhinayaa.